shirka golaha wasiirada Puntland oo shir gudoominaya madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo goobjoog ka ahaa madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash waxaa toddobaadkan looga hadlay amniga hindisa sharciyeedka xeerka dugsiyada Quraanka fidinta adeegyada ganacsiga iyo waliba kordhinta dakhliga bangiga sidoo kale qorshayaasha warbaahinta ee dawladda iyo waliba qodobo kale waxaana markii uu shirka golaha soo idlaaday ka warbixiyay nuxurka qodobada looga hadlay shirka afayeenka Puntland ahna agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Jaamac Dubraani shirkii golaha wasiirada ee dawladda Puntland oo uu shir gudoomiyay madaxweynaha dawladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani oo uu heliyo madaxweyne ku-xigeenka dawladda mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash arrimo dhowr ah ayaa toddobaadkan shirka golaha wasiirada looga hadlay oo ay ugu horeyso amniga guud ee Puntland wasaaradda amniga ayaa warbixinta amniga golaha la wadaagtay waxaana ciidamada dawladda Puntland ay toddobaadkan ay fashiliyeen qaraxyo dhagar qabayaashu isku dayeen inay ku waxyeeleeyaan shacabka iyo guud ahaanba mas'uuliyiinta dawladda Puntland wasaaradda cadaaladda ayaa iyaduna golaha waxay la wadaagtay hindisa sharciyeedka xeerka dugsiyada Quraanka oo ay soo diyaarisay waxa loo qaybiyay xubnaha golaha wasiirada waxaana qorshuhu yahay in toddobaadyada soo socda asixintiisa lagu soo diro ajandayaasha madaxweynaha dawladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu golaha la wadaagay oo uga warbixiyay safarkii uu dalka dibadiisa ugu maqnaa iyo sida uu guulo ugu soo dhamaaday wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee dawladda Puntland waxa ay golaha la wadaagtay adeegyada ganacsi iyo kordhinta dakhliga ee dalka iyo waliba qorshayaasha socda waxyaabaha u qabsoomay iyo waxyaabaha ay higsanayso wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee dawladda Puntland waxa ayna golaha la wadaagtay warbixin la xiriirta horumarka ganacsi ee ka socda Puntland dhaqdhaqaaqa dekeda ganacsiga ee magaalada Boosaaso iyadoo wasaaraddu ay golaha la wadaagtay in 5,000 oo neef oo xoolaha Puntland ay toddobaadkan gudihiisa loo dhoofiyay dalka Imaaraadka midkaasi oo muujinaysa kor u qaadista kobaca dhaqaale ee guud iyo dhaqdhaqaaqa ganacsi ee dalka golaha waxa uu soo dhaweeyay in wadada isku xirta Garowe iyo Gaalkacyo la dhisayo oo toddobaadkan la saxeexay midaasi oo qayb ka ah siyaasadda horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo kuwa ganacsi ee Puntland oo meel sare uga jirta siyaasadda madaxweynaha dawladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani waxa golaha warbixin la wadaagay gudida ku hawlana gurmadida goboladii ay saameeyeen roobabku oo ugu horeeyo gobolka Gaardafuu waxay ka warbixiyeen meesha ay wax marayaan qorshayaasha iyo sida loo diyaariyay iyo waliba adeegyada la gaarsiiyay dadka iyo waxyaabaha loo qorsheeyay in dadka ugu horeeya la gaarsiiyo in la wadaagay golaha goluhuna aad ayuu u bogaadiyay sida ay u socoto gurmadka loo fidinayo goboladii ay saameynta ku yeesheen roobabku iyadoo sidoo kale laga hadlay oo dawladuna ay mas'uuliyad iska saartay burburka soo gaaray wadada isku xirta Boosaaso iyo Garowe oo haatanba ay ku hawlan tahay qiimeyntii ugu dambeysay ay sameysay shirkadda ECC ee dalka China laga leeyahay taasi oo dhawaan madaxweynaha dawladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani oo dhagax dhigay wajiga koowaad lagu dayactirayo wadada Boosaaso iyo Garowe isku xigta oo ay saameyn ku yeesheen roobabkii ka daay dhawaan Puntland shirku guud ahaantii wuxuu ku soo dhamaaday guul aad iyo aad ba mahadsantiin Abduqaadir Cabdullaahi Warsame Galmudug TV